kusoo dhawaada saaxiibayaal Somali Documentary. Fadlan haddii marka kugu horeysa ay tahay subscribe-ka naga iloobin adigoo mahadsan. Waxaan hore ka gelaynaa mowduuceena oo ujeedaan dibka saaran musalsalka Habboon wuxuu galay xaaladii ugu halista badneed ugu xiisaha badneyd geerida oo Ducaale waxay noqotay kii ugu murugta badnaa wax alla wixii la soo arkay ee murug ahaa Habboon maxaa la dhahaa jaceylkii uu qabay maxaa la dhahaa Jamaal guriga ay ka tagtay la waayay waxaas oo dhan waxaa ka halis badan oo ka murug badan oo Ducaale oo geeriyooday oo Ducaale musalsalka asaga ayaa isku hayay runtii wuxuu ahaa shakhsiyadda labaad ee ku xigay Habboon. shakhsiyadda saddexaadna waa Jamaal, afaraadna waa Amran. Marka tiir weyn ayaa ka baxay musalsalka Habboon oo ah musalsalkii ugu xiisaha badnaa ee Soomaali ay weligeed samayso. Marka Ducaale reerka ayuu isku hayay, maamada asaga ayaa balance gareynayay, go'aanadeeda adag asaga ayaa khafiifinayay, asaga ayay aad u jeceshahay oo markasta warkiisa ay tixgeli jirtay. Habboon waxay weysay hadda reerkeeda dhabta ahaa ee waxay raadinaysaa reerkii dhalay laakiin aan soo korsan oo wax kala qaad aan la lahayn dhalmada daraaddeed xiriirkaas suu culus yahay daraaddiis ay ku raadinaysay. Laakiin xalay ayay weysay tiirka dhabta ah ay ku tiirsanayd ee guriga inuu kusoo celiyo rabay ee ay soo wici jirtay ee ay sheekada ugu dareenka badnaa xalqadii 17aad ee dhex martay. Runtii aabbaha dhabta ah waxay weysay xalay ayay weysay Habboon oo Ducaale sheekada aad iyo aad isku bedeli rabtaa. Xildhibaan Jaamac ayaa reerka hadda hoggaan u noqonaya oo dadaal badan sameynaya isagoo raba inuu helo Ismahaan oo ayaduna ku adkeynaysa halkaana uu tallaabo ka qaadi doono. Maamada waa iska gaday, lacag u dhiibay, isaga ayay la jirtaa hadda. Gabadheedu waxay leedahay mustaqbal samayso, ninkan waa nin ku bixi kara. Xaaladdu halkaa ayay maraysaa, xildhibaanku halkaa ayuu fursad ka helayaa. Tan kale sheekada ugu halista badan ayaa waxay tahay yaa ka dambeeya oo Ducaale shilka uu galay yaa ka dambeeya. Shil iska caadiya miyaa uu bajaajlaha iska galay oo iska socday miyaa oo aan ku talagal ahayn mise waa shil laga shaqeeyay? Shilkan waa laga shaqeeyay oo Ducaale si degdega ayuu ku soo galay bajaajlaha isagoo aan wacanin, uu ku qanciyay inuu qaado. Aniga bajaajlaha waa ka shakiyay, shakigiina hadduu soo baxayaa maxaa yeelay Subayr ayaa meel kore kala socda oo qorshahan dejiyay. Subayr waa laadarka filimkan inkastoo hadda kaabalaadar uu kusoo biiray odayga koofilaha oo hantiilaha ah iyo xaaskiisa, inkastoo kusoo biireen oo iskaashanayaan qorshana ay ka leeyihiin arrintan. Qorshahan waxaa ka dambeeya ninka la dhaho Subayr, wuxuuna adeegsanayaa Xamdi oo qorshaha gadaal uga soo biiri doonta haddase aan ku jirin, macnaha fulinta shilka ay Ducaale aan ku jirin laakiin gadaal uga soo biiri doonto. Sheekadeedana aan kaga dhici doono maxaa yeelay Subayr wuxuu rabaa inay family yeelato maadaama gurigiisa uu ku hay waayey, familkii uu fahansiin waayey oo familkaas ay yihiin famil taxaddar badan. Gabadhiina sida ay uga soo tagtay aabihiina uu aqbali waayey, wuxuu isku dayayaa hadda inuu famil u sameeyo Habboon oo uu soo siiyey macluumaadkeeda ay xilligii dhuntay iyo waxaas oo dhan iyaguna halka ay ku sheegteen. Sidaas darteedna uu rabo inuu familkaas u soo maro oo kasoo doonto. Marka familkan howlgalka way sameeyeen, way jileen, si fiican ay u jileen. Maxaa la dhahaa Ducaale oo ah qofka kaliya oo Habboon bixinaya waa la dilay, qorshahaasaa lagu dilay. Hadda familkan ama way ku qasbayaan Subayr ama hanti ayuu u isticmaalayaa. Subayr sidiisaba meel uu ka shaqeeyna lama yaqaano, hantina wuu haystaa, gaari weyn wuu wataa. Marka Subayr
waa nin qorshooyin halis wato oo aan la fahansanayn gadaal ay kasoo bixi doontaa wuxuu ka shaqaysto. Ma daroogada ayuu dhoofiyaa, ma siyaasi hoose oo tuug ah oo dowladda la shaqaystaa, ma maxaa la dhahaa dhulalka dadka dhaca ah. waa nin halisa oo tuug ah. waa Cabo Ladaro waxaa loo yaqaano oo Talyaani. ereygaas Cabo Ladaro waa Talyaani, macnaha waa the crime boss, micnaha dembiga ninka kooxaha dembiga ninka hogaamiyo oo booska u ah ayaa la dhahaa Cabo Ladaro. Hindiga waxaa waaye ama aflaanta ajnabiga ah guud ahaanba nimanka noocaan oo kale jira waxaa loo yaqaanaa the bad role. Hindiga waxaa caan ku ah ninka la yiraahdo Salim Sey, Amrish Puri iyo ninka la yiraahdo Khadar Khan iyo niman badan oo ku takhasusay filimaantaas. ninka la dhaho Soomaalida ay u taqaano waaqwaaq oo kale Remi Redi ayaa la dhahaa. musalsalada carabiga ah waxaa loo yaqaanaa dowru shariir ayaa la dhahaa, ama shariira. naag iyo ninba way jilaan. qofka shariirka jilaya ama laadarka ama tuuga waa qof maskaxdiisa ay ku shaqayso qaab dembi ah oo tuugnimo ah oo khiyaano ah, markastana u loogaya ama u sameynayo shirqoollo iyo waxyaabo aan la fahmi karin oo dhib badan. qofka daacad iska ah oo badanaa ah atooraha, atariishada, dhakhtar, macallin, waxaas oo dhan wuu kasoo horjeedaa. isaga wuxuu rabaa inuu baabi'iyo oo isaga dantiisa uu gaaro. marka Subayr waa noocaas ayuu ku jilayaa musalsalka. wuxuu adeegsanayaa dad fara badan, wuxuu adeegsanayaa hanti. Odo Ducaale dilkiisana dembi ayaa ka dhalanayo, booliska ayaa soo faragelinayo, CID ayay ka bilaabatay sheekada, maxkamad inay gaarto waan rajeynaynaa. musalsalkanna waxaan qiyaasayaa inuu 30 ku dhammaan doono, 30 xalqadood. maxaa yeelay waa musalsal aad iyo aad howlo badan ugu baxayso, jilaayaal ay ku jiraan, hanti badan ay gashay, maxaa la dhahaa saameyn badan leh. habboon 1 2 3 4 5 in la gaarsiino waa laga yaabaa. nala soco falaqeyta waa sidii wadi doonaa. fadlan subscribe saar haddii ay kuu tahay markii kuugu horreysay oo aadna soo booqato, si ay kusoo gaaraan muuqaaladeena xiga oo aad noo dhiirigeliso. mahadsanid.